waxaan ka xumahay dhibka loo geystay aniga walaalkay baabajay maanta waxaan maraynaa abuuristii ilaahay inaan isku cayno maanta haddii abuuristii ilaahay la dhaajinayo meeshaasaan maraynaa maxaa yeelay dhallinyaradayni gaalaa tababartay wixii 30 sano ka yar maanta gaalaa gacanta ku dhigtay xiirashada fiiri dabagaabka fiiri shukada ay gabdhaha wataan fiiri maalin hore liidaan tagay 3 sano bajaaj ma raacin waxaa suuq ma laha mugta bajaaj oo raacay waxaa suuq ma laha anuu bajaaj ma raaco waana la yaqaanaa ninka lugtiisa markuu baabuurta raacayo dhaxdu ka soo qabtaa kor buu u soo qaadaa xataa waxaad isleedahay kuma taalo gurigaaga xaaskaaga gabdhahaaga adigoo difaacanaya qabiilista mujrima ay diinta islaamka ay waxba la ahayn hadduu gurigaaga kugu yimaado adigoo difaacaya reerkaaga haddaad dhimato shahiid baa tahay bismillaah waxaan jeclahay inaan waana guud oo nafteyda bulshada muslimka inta allahu rabbulcaalamiin aftaqaan inaan hawada u mariyo maxaa yeelay anigu mar walba waxaan la hadlaa inta allahu rabbulcaalamiin aftaqaan waxaan ugu batay dad dhallinyaraa oo gaala ay tababaratay diin iyo dhaqanka ummaddana duulaan ku ah aada u afxun waxay diinta islaamka kaga dhaqmaan anugu ma garanayo bulshadu markay bulsho muslima tahay allahu rabbulcaalamiin wuxuu faray inay u noolaato bulsho muslima soomaalidu runta way necab yihiin haddaad muslim tahay in codbaahiye lagu isticmaalo oo qof kale uu ku yiraahdo ii coday ey hebel ii caay amba caydu waa dhowr qayb inaad qofka cod u soo dirto inaad fariin u soo dirto inaad baraha bulshada ka cayso intaba haddaad samayso waxaa hoos u dhacayo qiimihii aad sheeganaysay inaad ruux muslima tahay anugu ma rabo inaan niisiro nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa la weydiiyey yaa muslima can abi muusa qaala qaaluu ya rasuula allahi ayu lislaami afdal nabi allow rasuul allow sala allahu calayhi wasalam bulshada muslimka yaa ugu fadli badan baa ley muxuu ku jawaabay qaala man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi xadiisku bukhaarigu kugu yaalaa ruuxa carabkiisa laga nabad galo waa lisaanka kaa weeyaan aan ku tuso faaxisho afxumo qaybin qabyaalad kaa ka ilaali gacantaadana yaa shar loo isticmaali adigoo ruux muslima in ruux kale ou ku isticmaalo oo kaasoo dhex hadlo ee ruux kaleoo muslima lagu yidhaahdo ii aflagaaday caqliguna ogolaan maayo islaamkuna wuu diiday waxaan ka xumahay dhibka loo geystay aniga walaalkay baabajay maanta waxaan maraynaa abuuristii ilaahay inaan isku cayno ninkaan nin naafaa waaye maalinkii anigii asagaan is arkaynay ee wixii naga dhexeeyay oo walaalnimaa iyo diina iyo suluxa aan gaaraynay bajaaj baan raacnay nin walaalaha ka soo shaqeeyey oo la yidhahdo dhagos khayr allaha siiyo anigu 3 sano bajaaj ma raacin 3 sano bajaaj ma raacin waxaa suuq ma laha mugta bajaaj oo raacaa iyo waxaa suuq ma laha anugu bajaaj ma raaco waana la yaqaanaa ninka
lugtiisa markuu baabuurta raacayo dhaxduu ka soo qabtaa kor buu u soo qaadaa xataa waxaad isleedahay kuma taalo maanta waxaan maraynaa niman dhallinyaraa oo diinta islaamka iska sheegta ee gaala ay tababaratay ayaa ku soo duulay dhallinyarta qaar hadday baydhabo joogaan hadday hargeysa joogaan hadday garowe joogaan hadday jabuuti joogaan hadday muqdisho joogaan hadday islii joogaan diinta islaamka waxay farto dhan waxbay ku bedesheen masjidka inay camiraan ee qur'aanka akhriyaan masjidka waxay ku bedesheen baalkan la yidhahda gameka ama play station qur'aanka in la akhriyo aflaan bay ku bedesheen macruufka in ummadda la farana munkaray ku bedesheen jidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam si buuxda in loo marana waxay ku bedesheen kii ibliis soomaaley wadaad wax niga qaraayo waxba niima galo haddaad dadka cay karto dadka waa wanaajin kartaa aniga dadka igu xiran dad muslima waay boqol marna waa nii sheegay wallaahi dad muslima oo diinta islaamka xaraash iyo xoolo jaban u ahayn baa igu xiran anigay canaantaan marka qaar inaa cid caaya iska daayay waxay yiraahdaan yoolkayna iyo hadafkaynu wuu ka weyn yahay in cid la caayo in cid lala ficiltamo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam risaaladiisii baan wakiil ka nahay sheekh shantaayow garbahagaan joognaa cidnaha la ficiltami maxaa yidhi waa dad muslima waxaan rabaa inaan guud ahaan kibton iyo faransa iyo london dadka degan inaan fariin u diro iyo finland aniga qofka aan balan lahayn diinta inaan barano inaan raacno inaan u gargaarno guriga aan u socono maalin walba inaan dayactirno cidda aan diyaar u ahayn inaan wax isku darsanno aniga lixdeeda jiifarhii nabadgeliso waa guud ahaan dadka ku nool dibadda maxaa yeele allahu rabbulcaalamiin suuratu tooba wuxuu ku leeyahay aayadda 119 yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wa kunuu maca asaadiqiin yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiyow ittaquu llaha alla iska jira oo alla ka baqa oo alla ka dambeeya wa kunuu ahaada maca asaadiqiina kuwa runta badan la jirkooda iyo micigooda ahaada ruuxa aniga rabo inuu ila soo xiriiro waa inuu yahay ruux muslima oo balan leh waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dhallinyarta soomaaliyeed wixii ragga ayaan rabaa inaan fariin u diro dhiigaaga meeshuu ku daadaya iska fiiri qabyaalad haddaad u dhimato ahlu naaraa tahay anaan waxba kaa qarinayn ahlu naaraa tahay haddaad qabyaalad u dhimato adoo qabyaalad u dagaalamaya haddaad dhimato ahlu naaraa tahay adoo ruux dulmaaya haddaad dhimatay xabadda lagaala hormaran ahlu naaraa tahay diinta adigoo la dagaalamaya haddaad dhimatane gaal baa tahay ahlu naarna waa tahay waxaa kala duwan adigoo muslima haddaad qabyaalad ku dhimata maxaa naqane ahlu naar anaa waxba qarinayn muslimaa tahay laakiin ahlu naaraa tahay adigoo muslima adigoo cid dulmaaya haddii xabadda lagaala hormaran ahlu naaraa tahay waa lagu dhaqi waa lagu kafani waa lagugu dukani waa lagu aasi laakiin ahlu naaraa tahay diinta islaamka inay faafto haddaad xasaasiyad ka qaadayso oo xaqa markii lagu dhawaaqaba aada gubanaysane gaal baa tahay waxaa qaris lama rabo sheekh nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiiska muslimaa wariyey jaa rajulu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama ilaahay rasuulkiisaa nin u yimiday
وحوري فقال يا رسول الله إلهي رسول كيسيو صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي نبي الله ننبائي مذي جاء يريد دونايا أخذ مالي مال كي إنه اسكاقاته بحوري دقيسو فقال وحوري إلهي رسول كيسي لا تعده مالك هسين حولها أديد هنتدادا قال وحوري مرلوات أرأيت إن قاتلني هدو إلى الدقال مكورا هدان إلى حوله كسين مايو أو إلى الدقال مكورا وحوري قاتله لدقال اسكدعي سؤال شيء اسكفيري سؤال كلويدي وحوري أرأيت إن قتلني هدو إدي لك ورا مال والبوك صوغلي أسوحوري قال فأنت شهيد حبض هدوك على هرمروري شهيد باتا قريقاقا حاسكاقا قبلهاقا أديقو دفاعنا قبيليستم مجرمة أي دينة إسلام كاين وحب الله هين هادو قريقاقو كوي ماذا أديقو دفاع يريركاقا هادو ديمتو شهيد باتاي سؤال شو قدام بيسوي دي محويري أرأيت إن قتلته هدان أساقد ديلو كورن قعنتي ديو كبحي وحوري قال هو في النار قالوا النار وايو وحان شيئين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكيسي أضينا وضعنا مجرمة أو قبائل كصومالي وكيل كاه أي أمضك لساري كرين أي قبياليسته أي مجرمة أي أمضى يسكفر سنة يماها وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن شيئين حديث كان مسلم بكيانا وأنا مرفوع أبي هريرة وريني دلني يرت الصومالية وحن لاهي ما شاءت كل ميسين اسكفيرية هل كأت كل ميسين اسكفيرية باب الجي وحن لاهي أني ولا الكيباتاي أني إن لا عايو وندول غادنيا إلهي باني أمري النبي صلى الله عليه وسلم إلهي معكويري ولربك فاصبر ولربك ربك درتي فاصبر وصبر نبي الله دول قادو أنا ونين داعي أنا هاي أوضي وان دول قادني ضد مسلمان يقرب تاجن باب جي ويل كدن يرى هاي باب جي وسوق في إيه متك كاميرا ذا كدوبي ولا مجرم واي متك حمانتك وهذا لا يا إيه متك كاميرا ذا لدى بجوجو لبضو ولا مجرم ويان براها بلشادة وحان أقلا إن الحق عدايو مالين والبو هدي العادة يستي إن عرضك مسلمين تلغتمتو مالين والبو هدي العادة يستي فاحشة إيا منكر إيا قيبين تو أمدا إلا قيبيو أمدا إلا قيبينا ما أقبلينو أمدا إنا ومدك كلا ظلمينا ما أقلين أمد مسلمة وايه وحرمنا أمدا إن دينت الله إلى عليو وحرمنا أمدا إن لك الرهيب كرو وحرمنا أمدا إن لك الدعي كرو هذا أمهسنتهين walaalkayna waxaan leeyahay walaalkay iska sabar dul qaado maanta hadii abuuristi ilaahay la dhaajinayo meeshaas aan marayna maxaa yeelay dhalinyaradayni gaala tababartay wixii 30 sano ka yar maanta gaala gacanta ku dhigtay xiirashada fiiri dabagaabka fiiri shukada ay gabdhaha wataan fiiri maana warliidan tagay kalimadayda ugu dambaysa سدح بقول أو دلينيرا أيها صلاة مغرب تكن سدح بقول أو دلينيرا أو كيبا بوما وتو بوما دني هلك أتوكتو صلاة مغرب تكن وداد مسكينة وحولة يا مسلمين معها إلا الجميع صدق وأنا أقولها صلاح إن العيار أو دليرتو إيس أتكيان وان أقولهاي بدأ إن دواشة لبرتو وان أقولهاي
laakiin saacada la ogolyahay duhurkii waa laga tagay casirkii waa laga tagay maghribkii waa laga tagay bulshada ma waxa loo abuuray cabaf iyo ciyaar ya looma abuurin bulshadan bulsho muslima waaye maqsuud baa loo abuuray maxaa loo abuuray inaan ilaahay garano dhalinyar gacan laguma hayo mid walba dabagaabo wata xundurtiisa muuqato intaan koro xabadku uu banaan yahay dhar ma wato salaadii makhrimaysan dukan hotelkii aan saarnay baan ka degay waan u tagay way ugu soo yaacay إليش هذا ويلو معروف أنا هاي وفهمي سما وحنكوري أول صلاة المغرب شيخو أي كبح واي سدح بقول مسلم كان نوع عاسى إلهي وحبكم وفلاي إلهي مدونا يا مسلم نوع عاسى الله رب العالمين وحروات اللي يرو إلهي تقان أو مسلمة أو إلهي أفتقان أو إلهي كدم بيسا أي صلاة آذان كمركي مغلان شقادة يقوبها شقادة كيمانا يا مسجد كوسور علينا يا صلاة مركي لاقي من الصفكة كواد بوحنا يا أي دها يا الله أكبر مسلم كاسبو إلهي دونيا كاسو إلهي رباع مسلم قبيل يقود كفكرة إلهي مدونا يو قبيل يقود إلى مسلم كفكرة إلهي مر بيو وحناكم وفلاي يعني للسرين الدنيا جوجنا ما أنت توبة نفرا هذا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله